ismaqal iyo daawasho wanaagsan saaxiibayaal halkani waa janalka dabagalka wararka waa 18 bisha koobaad sanadka 2020 qodobada ugu doorkaroon warka janalka dabagalka wararka waxaa kamid ah madaxtooyada Soomaaliya oo jawaab ka bixisay hooyo sheegtay in gabadheeda afduub ay ku haystaan ciidanka ilaalada filla Soomaaliya siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo sheegay in madaxweyne Farmaajo uu dejiyay qorshe kiiskii qalbi dhagax mas'uuliyadiisa dusha looga saaray Sanbalooshe dowladda Soomaaliya oo sheegtay in ay dishay 15 ka tirsan maleeshiyada argagixisada ah ee Shabaab guddoonka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya oo ka hadlay doorashada ka dhacday Dhuusamareeb dhalinyaro Soomaaliya oo ku dhibaataysan dalka Iiraan Taliban iyo Mareykanka oo wada hadal ku leh magaalada Dooxa ee dalka Qatar iyo hogaamiyaha ruuxiga ee dalka Iiraan oo difaacay militariga dalkiisa oo qaaday tallaabadii ugu foosho xumayd inta uu jiro militariga Iiraan intaas saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu doorkaroon warka janalka dabagalka wararka haddii aad ku cusub tahay janalkan ku soo biir oo subscribe saar kana mid noqo saaxiibada joogto u hel 24 saac wararka halkan aan ku baahino muuqaalka laagsaar qaybta hoose ee commentiga nagula wadaag aragtidaada sidoo kale share garee oo la wadaag saaxiibada ku mahadsanid inaad ka mid tahay saaxiibada dhow ee janalka dabagalka wararka haatana aan idinku wareejiyo wariyaheena magaalada Muqdisho oo noo soo gudbiya wararkaasi oo faahfaahsan aad baad u maasantahay halkan waa janalka dabagalka wararka daawadayaal haatana ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan Villa Soomaaliya ayaa jawaab ka bixisay hooyo sheegtay in gabadheeda ay afduub ku haystaan ciidamada ilaalada madaxtooyada Soomaaliya ayaa ka hadashay abashada hooyo Amran Maxamed Cismaan oo sheegtay in ay gabar ay dhashay oo 16 jir ah ay haystaan ciidamada ilaalada madaxtooyada Soomaaliya agaasimaha warfaafinta madaxtooyada Cabdinuur Maxamed Axmed oo qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook ayuu ku sheegay in ay baaritaan ku sameynayaan cabashada hooyo Amran waan maqalnay kheyladhaanta hooyo Amran Maxamed Cismaan oo ilaa shalay baraha bulshada lagu faafiyay waxaana xiriir la sameynay maxkamadda kiiska gacanta ku haysa xeer ilaaliyaha dacwadda soo oogay iyo madaxda askarta la eedeeyay ayuu yiri Cabdinuur waxa uu sheegay in sida ay wax u jiraan iyo sida wax loo tabinayo ay kala fog yihiin sida uu hadalku u dhigay waxa ii muuqatay in baaritaan daafuran loo baahan yahay si la isku waafajiyo cabashada hooyada iyo aragtida ay qabaan qaybaha kala duwan ee kiiska ku lugta leh xoguhu sida qolo walba u tabinayso waa wax kala fog inta taas laga xaqiijinayo waxa haboon in laga fogaado buubuuninta wararka hubinta u baahan warbaahintuna waa in ay dheelitir ku sameysaa waxa ay bulshada la wadaagayso si aan loo sii abuurin jahwareer kale ayuu yiri Cabdinuur ayaa sheegay in qoyska Amran uu u xaqiijinayo in ay cadaaladda ku garab istaagayaan ayada iyo qof kasta oo dhibana ah loona baahan yahay in laga hordhicin baaritaanka haatan socda sida uu hadalku u dhigay geesta kalena Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa difaacay Sanbalooshe si kululna u dhaliilay gudoomiyaha aqalka sare siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa qoraal uu soo dhigay Facebookiisa uga jawaabay hadal dhawaan ka soo yeeray gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi oo isku dayay in uu eeda dhiibistii qalbi dhagax ka wareejiyo madaxweyne Farmaajo Cabdi Xaashi ayaa hadalkaasi jeediyay maalmo kadib markii qalbi dhagax uu bixiyay wareysi xasaasi ah oo kaga hadlay gafkii iyo xadgudubkii uga yimid Farmaajo qoraalka uu soo dhigay bartiisa Facebook Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa ugu horeen waxa uu ku yiri gudoomiyaha aqalka sare mudane Cabdi Xaashi waxa uu ogolaaday in uu noqdo dambi qariye eed ka roge iyo sidoo kale asturo loo isticmaalay inuu eeda kiiska qalbi dhagax ka rogo madaxweyne Farmaajo kuna gadiyo Sanbalooshe waase isku day farsamo xumo ah loo soo qorsheeyay dhanka su'aalaha loo dhigay iyo jawaabaha uu Cabdi Xaashi bixinayay intaba wareysiga Cabdi Xaashi waxa lagu soo beegay maalmo yar kadib wareysigii xanuunka badnaa ee la ii sheegay in ay Villa Soomaaliya ka hurdi weysay oo uu bixiyay qalbi dhagax oo eed culus dusha ka saaray madaxweynaha ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur isagoo qoraalka oo dhinacyo badan taabanaya sii wata ayuu dhinaca kale yiri Cabdi Xaashi waxa uu leeyahay Sanbalooshe ayaa marin habaabiye madaxweynaha haddii ay sidaasi tahay muxuu madaxweynuhu xilka uga qaadi waayay Sanbalooshe
oo xilka sii hayay muxuuse madaxweynuhu u diidi waayey go-aanka ay xukuumaddiisu qalbidhagaxi onlf ku sheegtay inay argagixiso yihiin haddii cabdi xaashi uu wareysigan bixin lahaa maalmihii dooda kiiska qalbidhagax taagneed waxaa lays odhan lahaa waa ka daacad waxa uu sheegayo laakiin isagoo xogogaal u ah xaqiiqda dhacdooyinka isdaba taxnaa ee kiiska qalbidhagax inuu si ulakac ah mas-uuliyadda uga leexiyo madaxweynaha kuna eetiro waxa ay dhaawacaysaa shakhsiyadiisa wuxuuna ku gobodfalay xilka uu ummadda u hayo wuxuuna ku xadgudbay garaadka muwaadiniinta Soomaaliyeed ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur ugu dambeyn Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa yiri sababta kaliya ee uusan baloosho eedo u saarayaan waa miska la fuula leh maadaama uusan haatan xil haynin sababtoo ah intii uusan baloosho xilka hayay Cabdi Xaashi marnaba kiiska qalbidhagax kama hadlin horena weligii ugama hadlin haddii dhiibistii qalbidhagax ee shalay ee marada kiriday wadani nabad iyo nolol maantana waxa ay marada kiriday wadanigii kacaanka Soomaaliyeed iska jira kaligiis wadani iyo kaligiis islaam dhinaca kalena dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ay dishay 15 ka mid ah dagaalyahanada al-shabaab war ka soo baxay dowladda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in 15 ka mid ah dagaalyahanada al-shabaab lagu dilay dagaal ka dhacay magaalada Xaaji Cali ee gobolka Shabeellada Dhexe war-saxaafadeedkan ayaa intaasi ku daray in 26 ka mid ah shabaab lagu dhaawacay isla dagaalkaasi ciidamada ayaa la sheegay in abbaare 8 habeenimo ay ka hortageen dagaal ee al-shabaab qorsheynayeen ciidankana ayaa la sheegayaa inay dagaalkaas ka hortageen kadib markii warbixin laga helay qorshahooda sida ay hadalku u dhigeen cadowga waxaa loo dhigay jidgooyo qorsheysan si xirfad ku dheehan tahay waxaa loo burburiyey raacyadii hore waxaana ku gaaray goobta lagu dagaalamay khasaare aad u badan taas oo keentay in ay tiro 4 jeer ah weerar soo qaadaan si ay u qaataan meedadka iyo dhaawaca faraha badan ee goobta ka dhacay ayaa lagu yiri qoraalka taliska ciidamada xoogga dalka ka soo baxay ciidamada xoogga ayaa dhankooda qirtay in dagaalka uga dhinteen hal sargaal ku xigeen 2 askari halka 3 askarina ay ku dhaawacmeen kooxda al-shabaab weli wax war ah kama aysan soo saarin dagaalkaasi halkaad weli daawadayaal nagala socotaan waa janalka dabagalka wararka ee guddoonka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliyana waxa uu ka hadlay doorashadii ka dhacday Dhuusamareeb guddoonada labada aqal baarlamaanka federaalka jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa hambalyo iyo bogaadin u diray guddoonka cusub ee baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug ee lagu doortay Dhuusamareeb gudoomiyaha golaha shacabka jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa hambalyo u diray gudoomiye Dr. Maxamed Nuur iyo ku-xigeenadiisa isagoo u rajeeyay in eebbe ku guuleeyo xilka loo igmaday sidoo kale mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi gudoomiyaha aqalka sare oo isaguna dhankiisa arinkaas ka hadlay ayaa hambalyo iyo bogaadin u jeediyey guddoonka baarlamaanka Galmudug wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye ayaa kula dardaarmay guddoonka baarlamaanka Galmudug ee loo doortay inay si hufan ugu adeegaan waajibaadkii loo igmaday maalmaha soo socda ayaana la filayaa in la qabto doorashada madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug dhalinyaro Soomaali ahna waxaa la sheegayaa inay ku dhibaateysan yihiin gudaha dalka Iiraan 8 qof oo Soomaali ah ayaa ku dhibaateysan xabsi ku yaala wadanka Iiraan kuwaas oo la sheegay inay dhameysteen waqtigoodii xirnaashaha balse aan la sii deenin ilaa inta laga helayo dowlad matasha dadkan ayaa laga qabtay xadka ay wadaagaan dalalka Iiraan iyo Turkiga xilli ay isku dayayeen in ay ka talaabaan xuduudda Iiraan oo ay gudaha u galaan dalka Turkiga deeq Maxamed Cali iyo Fadxi Shariif Xuseen Cali waxay ka mid yihiin dadkaasi lagu haysto dalka Iiraan iyagoo u waramayay mid ka mid ah warbaahinada Muqdisho ayaa waxay sheegeen in dowladda Iiraan ay ku wargelisay in ay dhameysteen waqtigii loogu talagalay in lagu hayo xabsiga balse ay ku sii jiri doonaan tan iyo inta laga helayo dowlad kala wareegta waxa ay sheegeen in markii hore safar dhulka ay uga baxeen gobolka Kurdistaan ee dalka Ciraaq iyaga oo sheegay in ay sii dhaxmareen dalka Iiraan balse la qabtay xilli ay ka sii baxayeen xuduudda Iiraan una socdeen dalka Turkiga 8 qof ay Soomaalida ayaa kala ah 5 wiil iyo 3 gabdhood waxayna badankooda ka baxeen magaalada Muqdisho marka laga reebo 2 wiil oo ka kala baxay Hargeysa iyo Nairobi dadkan ayaana la sheegay in la qabtay xilliyo kala duwan waxayna gacanta Iiraan ku jiraan 11 bilood ilaa 8 bilood iyagoo xabsigooda ku dhameystay magaalada xuduudda ku taala ee la yiraahdo Oromiya
markii ay dhammaysteen xabsiga waxa ay sheegeen in loo qaaday magaalo yar oo u dhow caasimada dalkaas ee Tehraan halkaas oo ay sheegeen in ay hadda ay ku dhibaataysan yihiin. Dhalinyaradan Soomaaliyeed ayaa sheegay in dad badan oo iskugu jira Afrikaan iyo Carab lala qabtay balse dhammaantood la sii daayay kadib markii dowladoodu ay u doodeen kana dalbadeen in ay Iiraan sii deyso. Xaalad adag oo caafimaad darro ah ayaa la sheegay in ay hadda ku haysato xabsiga, marar badanna ay la xiriireen dowladda Soomaaliya balse aysan weli wax u qaban. Dowladda Iiraan ayaana xujo uga dhigtay inay la yimaadaan dowlad kala wareegta. Madaxda dowladda federaalka Soomaaliya ayay dhalinyaradaas cod dheer uga dalbadeen in ay ka soo deyso xabsiyada ay ku jiraan. 7 bishii Janaayo sanadkii 2016 ayay dowladda Soomaaliya xiriirka u jartay dowladda Iiraan iyadoo diblomaasiyiinteedii ka ceerisay Muqdisho. Wixii xilligaasi ka dambeeyay ma jireen cilaaqaad la ogol yahay oo dhexmaray labada dal. qaybihii dambe ayaanu ku sii siqeynaa daawadayaal. Daalibaan iyo Mareykankana waxa ay wada hadallo ku leeyihiin Dooxa. Daalibaan ayaa diyaar u ah inay xabad joojin 10 maalmood ah la gaaraan ciidamada Mareykanka haddii ay heshiis la gaaraan wadaxaajoodiyaasha Mareykanka ee wada hadalka ay kula leeyihiin Dooxa. Daalibaan ayaa sidoo kale diyaar u ah inay yareeyaan rabshadaha ka dhanka ah ciidamada Afghanistan islamarkaasna ee wadaxaajood la yeeshaan saraakiisha dowladda Afghanistan. Haddii heshiis noocaas la gaaro waxay dib u soo nooleyn kartaa natiijadii laga qabo xal waara oo laga gaaro dagaalka Afghanistan. Daalibaan iyo wadaxaajoodiyaasha Mareykanka ayaa Arbacadii iyo Khamiistii kulmay siday uga wada hadlaan heshiiskii nabadeed, waxaana sidaasi sheegay afhayeen u hadlay xafiiska Daalibaan ee Qatar. Wadahadalladan waxay ahaayeen kuwo miro dhala waxayna sii socon doonaan maalmaha soo socda sida uu sheegay afhayeen Suheel Shaheen oo qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka. Madaxweynaha Mareykanka ayaa wadahadalladan joojiyay bishii September kadib markii weerar ay fuliyeen Daalibaan lagu dilay askari Mareykan ah. Ugu dambeyntiina hogaamiyaha ruuxiga ee dalka Iiraan ayaa difaacay militariga dalkaasi. Hogaamiyaha ruuxiga Iiraan Ayatullahi Ali Khamenei ayaa difaacay militariga dalkaas kadib markii dhowaan xukuumadda Tehraan ay qiratay in diyaaradii rakaabka ee Ukraine aan si ula kac ahayn loo soo riday. Waxa uu sheegay in ciidamadii kacaanka ee ka dambeeyay musiibadaas ay ilaaliyeen amniga Iiraan. Ayatullah ayaana salaada Jimcaha dadweynaha ku tujiyay gudaha magaalada caasimadda ee Tehraan markii ugu horeysay muddo 8 sano ah. Malaayiin Iiraan ah iyo kumanaan Iraaqiyiin ah ayaana u barordiiqay dilkii Generaal Soleimani, ayuu yiri Ayatullahi Ali Khamenei. Hadalkan hogaamiyaha sare ee Iiraan ayaana ku soo beegmay xilli dalkaas ay ka dhaceen dibadbaxyo lagu dalbanayo inuu xilka ka dego. Guud ahaan daawadayaal wanaga intaa warkii aad kala socoteen janalka dabagalka wararka. Fadlan haddii aan ugu cusub tahay nagu soo biir oo subscribe saar janalkan si aad uga mid noqoto saaxiibada sida joogtada weela wararka 24 saacana halkan ku baahino. Aragtidaada halka hoose noogu reeb, muuqaalka share gare, waana ku maasan tahay daawashada muuqaalkan oo aad kala socoteen dabagalka wararka.